maxaa faa'iida haddii aad lacag kaydsato misena lacagtaasi aad maalgeliso haddiiba hal go'aan oo qaldan uu burburin karo dhammaan lacagtii aad kaydsatay kaas oo ah inaad wax maalgeliso dad badan ayaa maanta waxay diiradda saaraan sidii ay u maalgashan lahaayeen ganacsi lacagta ay kaydsadeenna ay ugu dhalin lahayd lacag kale oo ka badan tii ay ku maalgeliyeen maxaa yeelay dadka hodanka ah waxay bartaan sidoo kale habka lacagta loo ilaaliyo sababtoo ah helitaanka lacagtu waa hal dagaal keliya sidoo kale ilaalinta lacagtuna waa dagaal kale muuqaalkani maanta waxaan kaga hadli doonaa casharkii afraad ama mawduucii afraad isla markaasna ku jiray buuggeena loo yaqaano The Richest Man in Babylonia qodobkan ayaa maanta waxaan kaga hadli doonaa habkaad markaas u ilaalin lahayd lacagtaada sababtoo ah dad badan ganacsato badan hantiilayaal badan waxa ay sameeyaan halkan qalad ee maanta kaga hadli doono muuqaalkeena magacaygu waa Mr. Hebe kusoo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta markaad waxa uu saaxiibtiisa u sheegay lacagta la kasbado iyo tan la maalgeliyo labaduba in ay ku jiraan khatar aad u weyn haddaba maxay noqon kartaa khatartaas sababtoo ah dad badan waxay ku dhacaan halkan dabin ee halista iyagoo oo raadinaya faa'iido aad u fara badan weliba muddo kooban iyagoo lacagtooda gelinaya meel aysan si fiican u fahmin ama ay ka haysan wax afkaar guud ah yacni si guud amba markaasi ayna ka haysan wax fikir guud ah oo sheegaya in lacag meeshan ay maal gashanayaan ay tahay meeshii saxda ahayd lacagtooduna ay u qalanto taasina waxay natiijada ka dhigi kartaa khasaare aad u weyn markaad waxa uu sheegay asxaabtiisa hantida koowaad ee ugu horreysa ee qofka maalgelinaya looga baahan yahay waa inuu ugu horreyn ilaaliyo maalkiisa sidoo kalena uu ogaado meesha uu maal gashanayo waxa ay qabanayso fikir guudna uu ka haysto si uu ogaan karo una qiimeyn karo meeshan inay tahay goobtii saxda ahayd misena ku kharash garayn lahaa lacagtiisa waxaana lagaga baahan yahay halkii aad ka fikiri lahayd faa'iidada lacagtaad heli doonto markaad wax maalgeliso inaad ka fikirto badbaadada lacagtaada oo haddii aan tusaale yaro kooban soo qaadano waxaa jira nin loogu magacaabi jiray cabdiraxmaan ninkan waxaa haystay lacag cadadeedu dhan tahay $5,000 haddaba ninkan cabdiraxmaan ladhaa nin asxaabtiisa ka mid ayaa u yimaaday wuxuuna u sheegay sidoo kalena uu ku qanciyey in markaasi uu amaahiyo lacag gaadhaysa $3,000 si uu ugu maalgashto ganacsi haddaba ninka cabdiraxmaan ahaa marnaba kama uusan fiirsan ganacsigaasi wuxuuna bilaabay in uu ninkii saaxiibka ahaa u dhiiba lacagtaasi isaga oo ballanqaad u sheegay oo ku yidhi lacagtaas $3,000 waxaan kuu soo celin doonaa hal bil kadib iyadoo $7,000 ah haddaba ninkii cabdiraxmaan ahaa isagoo eegaya faa'iidada ayaa waxa uu gacanta ka saaray $3,000 saaxiibkii si uu ugu maalgashto ganacsigiisa isaga keliya muhiimadiisuna waa maxay waa in uu helo $7,000 hal bil kadib balse 2 bilood kadib lacagtii uu maalgashtay cabdiraxmaan halkii uu heli lahaa lacagtii loogu ballanqaaday beddelkii halkii uu sugayay $7,000 2 bilood kadib waxa dhacday inuu ganacsigii burburo sidoo kale halkaasi ay kaga baxdo oo ay ku burburto lacagtii uu ku maalgeliyey ninkii ay saaxiibka ahaayeen si ugu aasaaso ganacsigaasi haddaba casharkan ka baranayno ayaa waxa yahay qodobkaasi in aad ka fiirsato 1,000 mar halka aad lacagtaada ku maalgelinayso sidoo kale aad ka warqabto waxyaabaha markaasi aad maal gashanayso inay yihiin waxyaabo la isku halayn karo iyo inay yihiin waxyaabo aan marnaba muhiim ahayn sidoo kalena kugu keenaya dhaqaale burbur sidoo kale waxaad ogaataa dadka guulaysta ma eegaan marnaba faa'iidada waxay eegaan waxay isweydiiyaan yaa maamulaya mashruucan sidoo kale waxay isweydiiyaan sidee buu u shaqaynayaa ganacsigani una noqon karaa mid guulaysta waaba haddii aan maal gashanay haddaba haddii aad cashar ka baranayso buuggan weliba qodobkan maanta muuqaalkiina kaga hadlayno waa idin noqdaa midkaani halkii aad ka fikri lahayd faa'iidada waa inaad ka fikirtaa 1,000 mar khatarta kaaga imaan karta waayo wax waliba waxay u baahan yihiin in laga fiirsado sidoo kalena la daraaseeyo lagana eego dhinaca positifeka halkii laga eegi lahaa dhinaca negatifeka sidoo kale mar kasta oo kuu timaado fursad dhaqaale ama maalgelin waxay doontaba ha noqotee waa inaad isweydiisaa halkan su'aal oo ah lacagtu ma ammaanba mise ma aha sidoo kale waxaan jeclaan lahayd nala wadaag saaxiib haddii uu jiro hal go'aan amba hal qalad oo aad weligaa gashay misena aad ku weyday lacag iyo sidoo kale qorshe adiga kuu degsana lacag aad ku maalgelisay ganacsi ama waxyaabo kaleba aan dhahnee magacaygu waa Mr. Hebe haddaba saaxiib haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir haddaad hore noola joogtayna muuqaal kale noo saar oo barteena saaxiib nagula noqo